السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا كنال كنان إشا عيارها يحبنتيني آردين سو قد بنشرني ورارك عيارها آباها حدي قوضي لك واحدة كبدا عكتي دورتموند إيرلين هالان يوكيلكي سمينو الريالا ayaa maanta kamaraduu qabteen iyagoo ka deganaya magaalada Barcelona iyadoo sida lagu warramay ay kulan la qaateen madaxweynaha cusub ee kooxda Barcelona ee Juan Laporta wadahadallada u dhaxeeyay matalayaasha xidigan iyo kooxaha dalabaadkooda ka soo gudbiyay ayaa u muuqda kuwa soo xoogeysanaya halka warkan soo baxayna oo hawada ku sii sharaxiisihii ay lahaayeen sida ay ku warramayso jarrada sport ee laga leeyahay dalkaasi Spain aabaha xidigan iyo wakiilkiisu waxa ay ka degeen magaalada Barcelona waxaana sida ay ku warramayso jarradani hore u sii galbiyay darawallo u shaqeeyay Juan Laporta si ay madaxweynaha kulan ula qaataan jarradani ayaa sidoo kale intaasi ku dartay in kulankii u dhaxeeyay labada dhinac ee uu qaatay muddo 2 saacadood ah kadib kulanka waxaa la xaqiijiyay in xilliyada inagu soo aadan ay kooxdani dalab rasmi ah ka gudbin doonto 20 jirkan la istaajin la'yahay kasakow wararkii ay dhawaan jarrada dasan ee dalkaasi Ingiriiska ku sheegaysay in Haaland uu soo dhaqaaqi doono dhankaas iyo kooxda Manchester City una saxiixi doono heshiis u ogolaanay inuu qaato mushaharka ugu sarreeya taariikhda Premier League haddana Barcelona ayaa dareensan in mushaharkiisu aan ahayn mid caqabad ku keenaya inkastoo kulankani uu kor u sii qaadayo hamiga kooxda Barcelona balse waxaan wali meesha laga saari karin daneeyayaasha kale ee xidigani oo ay ugu horeyso kooxda Manchester City dhabahaantii sida uu ku warramayo khabiirka kubadda cagta ee dhanka suuqa kala iibsiga Fabrizio Romano wakiilka xidigan ee Rayola ayaa la kulmi doona kooxaha waaweyn ee kale ee xidigan baadi goobaya usbuuca soo socda halka ay ila kale oo ku sugan England sheegayaan in aanay kaliya kooxda Manchester City dalab ka gudbin xidigan balse ay bilaabeen xiriir ay la sameeyaan aabaha xidiga Erling Haaland tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa qiray in labada xidig ee Bukayo Saka iyo Smith Rowe aanay qayb ka ahayn tababarka kooxda ka hor ciyaarta Sabtida ah ee la wada sugayo ee ay la leeyihiin kooxda Liverpool Saka ayaa ciyaartii ay kooxdiisu 3-3 la gashay kooxda West Ham looga saaray dhaawac isagoona sidoo kale wax qayb ah aan ku yeelan 3 ciyaarood ee xulkiisa qaranka ee England uu ciyaaray ciyaarahaas oo ka tirsanaa isreebreebka koobka adduunka dhanka kale Smith Rowe ayaa dhaawac misigta ka soo gaadhay ciyaarta xulkiisa Ingiriiska ee ka yar 20 jirradu guuldarrada 2-0 ah ka soo gaadhay xulka Boortaqiiska ciyaar ka tirsaneed horyaalka xulka Yurub ee 20 jirrada ka yar taasi oo dhacday axadii la soo dhaafay Arteta ayaa labadan da'yar ku soo daray safka kooxda Arsenal si ay kubad abuur aad loogu baahnaa kooxda ugu soo daraan iyagoo labadan ninna aanay khasaarin filashadii tababarahooda xilli ciyaareedkan ka qayb qaatay kuna dhug lahaa 20 gool oo kooxdoodu dhalisay sida ay warar soo baxaya sheegayaan kooxda Bayern Munich ayaa laga yaabaa inay dalab ka gudbiso xidiga kooxda Tottenham ee Heung-min Son xagaaga inagu soo aadan sida xidiga Harry Kane oo kale Son waxa uu ahaa mid ka mid ah xidigaha ifaya ee u dheelayay kooxda Spurs oo ku jirta xilli ciyaareed lagu tilmaami karo mid niyad jab ah xidigan u dhashay waddanka South Korea ayaa 16 gool u xaqiijiyay Spurs halka uu caawiyay 10 kale intii uu socday xilli ciyaareedkani Tottenham ayaa u halgami doonta sidii ay u hanan lahayd koobka League Cup-ka ama se hadda loo bixiyay Carabao Cup-ka inta bishan lagu guda jiro balse waxa hore looga tuuray koobka kala FA Cup iyo Europa League waxay sidoo kale Spurs 3 dhibcood ka hooseysaa kooxda ku jirta kaalinta afraad ee Chelsea inkasta oo Decembertii la soo dhaafay ay hoggaanka u haysay horyaalka guuldareysiga hanashada koobka ayaa ku hogaamin karta xidigo waaweyn oo kooxda ah sida Harry Kane, Heung-min Son iyo waliba Gareth Bale inay isaga huleelaan kooxdan ka dhisan waqooyiga London daawadayaal aad baad mahadsantihiin intan ayay ku egtahay xubinteena wararka ciyaaraha fadlan ha ilaawina like share iyo subscribe ku caawisaan kanaalkeena si aynu u gaarno 1000 subscribe ee ugu horeeya waxaan idin leeyahay waa anigoo idinkaga tegaya ismaqal dambe oo xiiso leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh